muqdisho yaa jooga war dadkan aad qarxisayad baabi'isay gaalaan u socday away gaaladaad u socotay war baladweyne yaa jooga war kismaayo yaa jooga war dhulkan aad gubayseed baabi'inaysay yaa jooga waa ajaa'ib nabigeena wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii ruux mu'mina dila oo gardarro ku dila haddana dilkiisa ku farxa laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadla ilaahay waajibna ka aqbali maayo sunnana ka aqbali maayo xadiidka cubaadata bnu saamit markii intaad baabi'isood boqolaal aad baabi'isood cagta mariso haddana aad hadasho oo aad ku dul mashxarado oo aad aayada ku dul akhrido oo aad ku faraxdo seebaa ilaahay wax kaaga aqbalaya laa yaqbalu allahu minhu sarfan walaa cadla ilaahay waajibna ka aqbali maayo sunnana ka aqbali maayo wax lagu farxaa waa wax laga yaqyaqsado waa wax laga sariigto waa wax aadamaha gaalkiisa iyo muslimkiisuba ka naxo war maxay galabsadeen dadkan aad gubtay waad gubtay waad qarxisay dab bay galeen dhuxul bay noqdeen jidhkoodii baa kala yaacay midba meel baa laga soo ururiyey umushii baa ku dhimatay carruurtii baa ku dhimatay waayeelkii baa ku dhintay kii tukaday baa ku dhintay war maxaad u laysay away gaalada meesha joogteed aad u socoto kuwee waaye markaasaa intaad soo istaagtay miidiyaha waxaad tidhi alxamdu lilah inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi ya jamaacata alkhayr marar badan baa dadka qaarkood waxay leeyihiin war dadkan sidaa yeelaya daroogaa la soo siiyo ma miyir qabaan faham saxa maaha hadal saxana ma aha lianna daroogada maadada daroogada ee jidhka daroogaysa maskaxda daroogaysa waxaa ka daran diinta si qallooca kuu gashaayay daroogadeedaa ka daran lianna ruuxa maadada daroogada cunay mar buu miyirsadaa laakiin fahamka diintu hadduu kugu qalloocdood ku daroogowdo marnaba miyirsan maysa ilaa adduunka aad dhaafto marka diin qalloocatay faham qalloocday daroogadiisa weeye waxa meesha ka jiree daroogaa la soo siiyey ruux waa miyirsan lahaa haddaad taariikhda akhridaanna wax sidan oo kaleeta waa soo maray saxaabadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool ayaa janno lagu raadsaday oo dhiiggoodii janno lagu raadsaday oo diinta laga saaroo la gaalaysiiyey oo muxuu ahay lagu janno tegay siday qabaan maxaa u malaynaysaa marka waa wax taariikhda horreeyey waaye fikirkani ma aha fikir uguba ma aha waa fikir soo jireen oo taariikh la waayo cid kasta oo qaadatana dhaqankiisa waa sidaa ka waran haddii intay soo duuleen tani waa soomaali waa muslim laakiin kacbada ilaahay intay yimaadeen oo xujaydii waa xaj wey adduunkoo dhan baa laysaga yimid xajkii baa la soo aaday xilligii muslimiintu xajka ay gudanayeen baa intay soo duuleen ayay intii xajinaysayba cagta mariyeen dhagixii kacbada ee la marsanayay dhagixii kacbadana iyo xajarul aswadkiina way la baxeen 20 sanay la maqnaayeen yaa waaye kuwaasi ma daroogaa la siiyey wama daroogaa la cabsiiyey darooga nooc kalaa gashay daroogada aad fahansantihiin noocaan ahayn baa gashay oo daroogo kale ah aadamaha marba haddii fahamka diineed ka qalloocdo waraabaha dad cunkiyo libaaxa dadka cunaayo waa ka daran yahay naxariisna male jixinjix male abayeel male insaaninimo male gaalkaa ka yaqyaqsanaya wuxuu samaynayo laanna fahamkii baa qalloocday arrintaasi waa arrin halisteeda leh daawaysa leedahoo daawadeedii looma socdo
mas-uuliyaddeeda ciddii iska lahaydna cid la xisaabtamaysa ma jirto kan isagu wareersan ee dhiigga caadaystay ee dadka gubaya ee muxuu ahay ummadda baabi'inayay isaga waa la gartay aaway kii meesha dawladda ka ahaa ee mas-uulka ka ahaa aaway ciddii u xil saarnayd hawshan maxaa loola xisaabtami waaye maxaa xilkiisa loogala xisaabtami waaye